السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن إسماعيل أبو زيد oo idin kala soo hadlay dalka Mareykanka waa maalinimo Jimco bisha 27 Maarso sanadka 2020 waxaan rabay inaan idin la wadaago warbixin oo nin walaalkeen oo la yiraahdo Ustaad Ibrahim Tata loo yaqaano oo ka soo qoray dalka Ingiriiska oo joogo warbixintaas oo ku saabsan saameynta ay ku yeelatay oo ku yeesho cudurka COVID-19 ama coronavirus ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada degan majaaliyada degan dalka Ingiriiska waxaa sidoo kale la mid noqon doono oo u badan tahay sida aan ku maqalnay jaaliyadaha Sweden iyo Mareykanka email kastaba noqon karto maadaama aan nahay ummad isku dhaqan iyo caado ah. marka warbixinta oo qoraal aheed ayaan damcay inaan video ka sameeyo aan isku day inaan muddo gaaban ku summarize gareeyo markii ila dhageysta waa idin akhrinayaa insha Allah. wuxuu leeyahay fayraska COVID-19 waxa uu sababay xaalad iyo mashaqo aanan Europe soo marin wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. cid u tabaabushaystatay masiibadan ma jirin. waxaa muuqata in dalkan Ingiriiska hay'adiisa caafimaadka NHS aysan ka jawaabi karin baahida xajmiga ballaaran ee ka imaanaysa dadka cudurkan soo ritay. jaaliyadeena Soomaaliyeed oo kolkii horeba duruufo adag ku nooleed ayaa si gaar ah ugu nugul in ay isqaadsiiyaan fayraskan. dhibaatada koowaad waxa ay ka imaanaysaa dhaqan ahaan sida aan u wada noolnahay oo loo badan yahay jiilal badan oo isdhex degan. sida darteedna waayeel fara badan oo u baahan in ay xanuunyo kala qabaan ayaa waxaa baylah ka sii dhigaya caruurta iyo dhalinyarada socodka iyo bixbixida badan ee la degan. dhaqan ahaan weli lama joojinin in la booqdo dadka xanuunsanaya ee ay dhici karto in ay la ildaran yihiin fayraskan ee aanan weli laga baarin. dadka waaweyn kuma wanaagsana in ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ee ay dawladdu bixinayso. waxa ay dhoobnaayeen maqaayadaha ilaa uu soo baxo amar dawladda ku qasbaya in ay xiraan maqaayadaha iyo ganacsiyada iyo goobaha la isugu yimaado. waa wax aad looga qaracmo marka qaar inaad aragto xaaladan oo ay ku sugan yihiin dad waayeelo ah oo xanuunkan uu soo ritay oo aanan loo ogolayn in ay qaraabo ugu timaado isbitaalka ay markaas ku xareysan yihiin iyagiina aysan aqoonin dhaqankii ama saluuqadii oo dadka kula hadlayeen howlwadeenada caafimaadka ah. marka ay dareemaan in ay xaaladu halis tahay ma jirto cid iyo ehel qaraabo ah oo la joogto oo la dardaarmaan amase inta ay sakaraadayaan ay ducadooda weheshadaan haddii ay tii alle imaado. qof la jooga ma jirto marka uu nafbaxayo kaliya waa un caafimaadka shaqaalihiisa oo meeshaas ayaga ka shaqaynayo. ehelka iyo qaraabada looma ogola inay arkaan meydka arrimo caafimaad la xiriira awgood. waxaa janaasada loo ogol yahay in ay raacaan dad aanan ka badnayn 10 qofood. qoyskii laga geeriyooday in la booqdo oo tiyaaraanyo iyo xanuunyo geerida lala gashayna looga tacsiyeeyo ma dhici karto. ayagii inay dhici lahayd iska dhaaf ayagii ayaaba go'doon la gelinayaa. telefoon unbaad ugu tacsiyin kartaa dadkii dhammaay. marka geerida waa naqaanaa uu leeyahay Ustaad Ibrahim, laakiin geerida COVID-19 weli lama arag lama maqal. sas iyo argagax ayaa dadkii jaaliyadii ku abuurmay oo haysta. marka Allah naga dulqaado. sidaas oo kale Mareykanka ama meel kastoo joogtiin Soomaalida waa inaan is ilaalinaa oo yahay dhaqankeena iyo qaabkan isku dhaxgalno cudurkan haddii uu noogu hor yimid waa inaan u hoggaansanaa talooyinka caafimaadka gaar ahaan wadamada dadka horumaray joogo sababtoo ah wadamadan at least waxa haysteen tashiilaad ama macluumaad idin sahli karo sida aad uga badbaadiin. marka yeesan dhicin wadan kasto corona soo gaaro dadka ugu dhinto dhimashada badan inay Soomaali noqdaan. dabcan dhimashada lama celin karo laakiin aan isku dayno in aan is ilaalino taxadarno ilaa iyo intii suuragal ah. Assalamu alaykum.